Generaal Gabre yaa xasuusto. Waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay wada garanayaan Generaal Gabre. Wax kale iska dhaafee waxaa jiri jiray xilliga cunug yar 3 jir ama 4 jir uu garanayo ama magaciisa garanayo haduusan xataa weligiis arkin Generaal Gabre. Waxaa jiri jiray xilli siyaasiyiinta Soomaaliyeed Generaal Gabre haddii la yiraahdo xataa haduusan joogin goobta fadhiga ka kacaan ama u istaagaan. Generaal Gabre wuxuu ahaa mujrim munaafiq weyn ayuu ahaa. Dhibaatooyin aan la soo koobi karin ayuu u geystay shacabka Soomaaliyeed. Qabaa'ilada Soomaaliyeed ayuu iska horkeenay. Dad aan la soo koobi karin ayaa naftooda ku waayay magaca Generaal Gabre. Xilligaasi uu Generaal Gabre ku sugnaa dalka Soomaaliya ama ka talin jiray dalka Soomaaliya, siyaasiyiinta Soomaaliyeed qof aan asaga la kulmin ama isku sawirin hadalkiisa waxba lagama soo qaadi jirin. Xilliyadaasi haddii aad rabto inaad heer sare ka gaarto siyaasadda dalka Soomaaliya waa inaad soo martaa Generaal Gabre. Asaga iyo adiga isku sawiran baraha bulshada laga arkaa. Markaas waxaa lagu arkayaa inaad tahay siyaasi bisil oo runtii meel fiican ka joogo siyaasadda dalka Soomaaliya. Generaal Gabre wuxuu deganaan jiray Villa Soomaaliya. Villa Soomaaliya ayuu xafiis ku lahaa. Madaxweynaha dalka Soomaaliya ayuu halkaasi amarsiin jiray. Subxaanallah waxaas oo dhan daqiiqad ay isku bedeleen kadib markii madaxweyne Farmaajo la doortay 2017 bisha February. Madaxweyne Farmaajo markuu qabsaday ama xukunka la wareegay ayaa aragtidiisa noogu dambeysay. Ninkii dhibaato intaas la ugu geystay shacabweynaha Soomaaliyeed, kumanaan shacab uu laayay, kumanaan uu barakiciyay, cid la xisaabtamtay ma lahan, maxkamad lama horkeenin. Itoobiya ayuu ku laabtay. Aakhirka dowladda federaalka Itoobiya iyo xisbiga uu ka mid ahaa Gabre markay isku dhaceen TPLF iyo ra'iisul wasaaraha hadda talada hayo Abiy Ahmed markay isku dhaceen, Generaal Gabre wuxuu ka mid ahaa generaalada si gaar ah loo raadinayo. Shalay ayaa la xaqiijiyay generaalo iyo generaal ku xigeenna kor u dhaafay 20 oo Gabre ku jiro in la laayay. Inkastoo wararka qaarkood sheegayeen qaarkood waa la laayay qaarkoodna nolol ayaa lagu hayaa ama waa la soo qabtay. Si kastaba ha ahaatee Gabre dhibaatada ummadda Soomaaliyeed uu u geystay ayaa maanta laga guday. Hadduu dhintay iyo haddii la qabtaba dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed u geystay ayaa maanta dalkiisa ku haysato.